السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواده asxaabtida sharafta leh xilguntada media ku xiran waxaan u soo galay war aad iyo xanuujiyay oo aan maaragtay ka xumaaday ayaan u soo galay diyaar ma ahayn inaan live soo galo ama live caawa aan soo noqdo warkaas aan ka xumaaday ay soo galshay dil qorshaysan oo dhacay hadda ay soo galshay mission lagu kaalmeynayo qawaariista ay soo galshay oo ayaan tar dham iska socdo joogsan waayay waa qasab inaan taasoo kale wax ka iraahdo dilkan qorshaysan oo qawaariista lagu kaalmeynayo iyo dadka ka dambeeya iyo ujeedka ka dambeeya dadku inay fahmaan oo aan maaragtay inta fahansan na way fahansantahay intaan fahansanayna aan ku baraarujiyaan u soo galay caaw gurceel sidaa wada maqasheen oo ka codsanaya sheergare caaw gurceel sidaa wada maqasheen dil qorshaysan ka dhacay gurceel dilalka ku soo laalaabanaya oo aan awal ka jirin oo amnigeeda la wada ogyahay say ahayd ugu badnaan boqolkiiba 99 waa mid qawaariista lagu kaalmeynayo anigu taasaan leeyahay ka badan dhihi maayo qawaariista lagu kaalmeynaya rag qawaariista soo dirsanayso qabiil iska dhigaya shaati qabiil gashanaya rag qawaariista ku shaqaysanaysa qabiil iska dhigaya rag qawaariista ku shaqaysanaysa qabiil gadaal ka riixaya ninina adeerkiisu xabad ku dhufanaya anigu waxaan dhihi karaa dadku waa inay fahmaan ujeedka ka dambeeya dilkan qorshaysan oo soo laalaabanaya aanooyinka tirada badan oo soo laalaabanayo awal aan jirin aan rabaa caawa inaan dadka Soomaaliyeed oo dhageysanaya halkaan iga dhageysanaya dadka ku nool galmudug aan caawa dhagahooda ku shubo nabadu wax ka muhiimsan male dariska iyo walaalnimada wax ka muhiimsan male dadka wada degan wax ka muhiimsan male inaan nabad ku noolaato wax ka muhiimsan male inaan walaalka qori u qaadato oo hamin walbaba aad dooxdo oo waxaan laga malaysan in aad samayso waxay kugu noqonaysaa ceeb iyo sharaf ka dhacay kugu noqonaysaa waxa qawaariista ku kaalmeynaysa kugu noqonaysaa ugaaskii beesha cayr waa daalay 24 saacadba meel asoo ku maqana gadaashii wax laga dilayaa caaw waxaan u soo jeedinayaa ugaas baasha dhaqan way ka tagtay qawaariij dhexdeeda shaqaysanaysa tii dhaqankood taqaanana maahan raggan waxay u baahan yihiin shootay u baahan yihiin iyo in tiirka lagu soo xiro waxaan codsanayaa reer gurceel ka codsanayaa dhammaan dadka halkaas degan ka codsanayaa nimanka wax laayay oo waxbada ku dhuftay inaan qabiil iyo lagula xaajoon oo aan qabiil dambe lagu xaajoon oo tiirka lagu soo xiro shooto lagu waco ciidamada faraha loo geliyo codsanayaa sababtoo baalkan wuu soo laalaabtay mana ahan qabiil qawaariijana adeejinaysa midan waxay u baahan tahay shootay u baahan tahay iyo maxkamad in la horgeeyo tiirka la horgeeyo u baahan tahay maahane tii qabiilkoo naqaano way dhaaftay sababtoo hadday midii qabiilka tahay oo mid qabiil ay tahay ugaasku maalin dhowd meel fagaara ayuu ku habaaray dadkii sameeya dhibkan oo kale ilaahay inuu dhibkan ku bixiyo ayuu ku habaaray wayna soo laabatay mar labaad ay soo laabatay caawa dil qorshaysan wiilka ganacsadaha oo la cali huudi la dhashay oo lagu dhex toogtay meesha nin dhintay nin nool in loo dilo anigu ma qabo nin dhintay in nin nool loo dilo ma qabo anigu ka nool in la waardiyeysto oo xabadan socoto cadowgu ridayo in la wada aado ninkii ragga oo ka kuwaas iska soo dhiciyo qawaariista iska soo dhiciyaan anigu qaba nin dhintay wuuba dhintay ninka nool adeer waa lagu xisaabtamaa nimanka hawshaas wada ma aha qabiil waa qawaariista niman u shaqeynaya anaa taas kule boqolkiiba 30 nin awalaalka u malayso adii garabkaaga socdo qoriga ku waardiyenaya taleefanka lacag inta lagu soo diro waxa la leeyahay ninka la socotay dil oo toogo hadaa ninkaas dil weydana nin kale u dhow asaga la socdo dil qawaariistiina ku shaqeynaysa ayaantan waxa taasi dheer rag dagaalka qawaariista garab taagan oo siyaasiyiin oo tiro badan oo maaragtay aan naqaano rag badan oo naqaan ay ku jiraan oo gobolada dhex fadhiya oo adeejinaya rag badan qabiil ahaan u adeejinaya tusaale ahaan babaasha caroole nimanka la yiraahdo waa niman la dhasho curadka nagiye kursi ma haystaan dawladda waxba lagama siin waxoodii oo dhan annaga ku fadhina waxa waliba waxa qaatay waxoodii oo dhan ragay ku wada bah ina xasana ku wada fadhida hal wax lagama siiyo ciidanka waxba lagama siiyo dawladda waxba lagama siiyo xildhibaan waxba lagama siiyo in dadkii inay maaragtay imtixaanaqaan ay ka aarsadaan carada u keenaysa oo waxa abgaal hadda ku dhaxmaray meeshan la yiraahdo shabeelada dhexe kuraastanadii waxa ku fadhiya reehbala ku fadhiya ay hadda ku dhaxmaraysa halkaas waxaan rabaa babaansha caroole lama sinna ayaan la cayr lama sinna 100 nin oo ayaan la hadoo madaxa ka jiro babaansha caroole lama taaban karo haddaan soo jeedinaya caaw 100 nin oo cayr hadoo madaxa ka jaara lama taaban karo lama sinna waa curad
dadka waa ka weyn yahay waa nala dhashay gardaraduna ma sinna lama raadsan karo nimanka raadsanaya oo kibirka ku raadsanaya ma ahan aana qabil waxay ku raadsanayaan tiirka lagu soo xiro anigu waxaan qabaa caawa ninka dilay cali huude walaalkiis ninka ganacsadaha gurceel lagu dilay tiirka lagu soo xiro ma ahan aana qabil tan wixii hore oo aana qabil u dhintaa u dhinteen laakiin tan oo kale qawaariijta lagu kaalmeynaya markii la ogaaday dagaalka qawaariijta inuu xoogaystay oo meel kasta ka socdo oo meel kasta la isaga gurmanayo oo maaragtay macuusleydii nin walba macuus soo qaato yidhi halla i qoro in maaragtay dadkii qabiilada lagu soo laabto shaki la kala dhexgeliyo dadkii oo difaaci la kala geliyo oo raggii difaaca ku wada jira shaki la kala geliyo adeero qawaariijta lagu kaalmeynaya raggaan ka dhex shaqaysanaya inaad fahantiin oo maskaxdaas yeelatiin oo caqligaas yeelatiin aan ka rabaa waa u tacsiyenayaa ninka dhintay allah u naxariisto caawa ku ekaa inuu dhintayna ahayd oo maaragtay naftiisu ku ekeed laakiin sifadu ku dhintay sifo qurxoon ma ahan meel qoriga annaga oo u baahan nin qawaariijtoon hortaagan oo deegaanka naga xoog ku haysta qoriga annaga u baahan inaan walaalkeen kula soo laabanno sharafka dhac weeye inaan xurmayn weyno ugaaskii meesha dadkao dhan hogaaminayana waa sharafka dhac reer gurceel nabadii ay kaga dartay nabad la-aanaa rabtiin haddaa nabad la-aan rabtiin niman raggana aad tihiin xaniyana aad isku ogtihiin raggiina gurceel joogow meeshaan burjeeldiina inta tagtiin ragga jooga inta u tagtiin la dagaalama anugu nin macawisleeya oo qawaariij soo adeejisa markii laga reebo wey ninka macawisleyda oo qawaariij soo adeejisa ha la iska qabto ninkii xaniye leh oo gurceel caawa jooga oo dadnimo ku jirto ragnimo leh burjeed inta tago nimanka qawaariijta ha raadsado ninka walaalkiisana qorigaa ka leexsho anugu caawa intaas ka badan dhihi maayo ninkii dhegaysan waayo ogaaskana ilaahay subxaana wa tacaala ha asaga iyo wixii ku fakeraba ilaahay ha ka soo ifiyo ninkii dhegaysan waayo ogaaska warkiisa meel xunna ha u dambayso anaa la habaarayo weliba ogaaska oo maaragtay magaciisuna waa ba'aya sababtoo meel fagaaraha inta qori saas ugu muday oo wuxuu yidhi ninkii iga daba shaqeeya ama ninkii beesha ka daba shaqeeya ilaahay meel xun ha marayuu yidhi siyaasi hadduu raba ha ahaado aqoon-yahan hadduu raba ha ahaado xildhibaan hadduu raba ha ahaado hadduu rabo nuucu raba ha ahaado ogaaska warkiisaa noo dhahan lagama daba dhici karo lagama daba hadli karo ninkii xaniyo isku og oo dadnimo leh oo wax iska dhicin kara burjeed ha tago ninka qoriga aa walaalkaa ku dilaysid inta leexisid walaalkaa maanta dilkaama mudnee nin dilkaa mudanaa joogay halkaas ragnimo haddaa leedahay intaasaan leeyahay anugu ka badan dhihi maayo waana intii qof caqli leh uu dhihi lahaa aan soo iri guud ahaanaan idiin iri qofka dhintay oo caawa naga dhintay yaan ficil laga qaadin yuusan dagaalka qawaariijta naga baajin yaan dadku isku aanayn yaan dib loo soo celin horaha looga socdo ha laga wada hadlo ha laga wada xaajoodo intaasaan leeyahay lagu kalsoonaado dadkan hoggaanay leeyihiin ogaaska ha lagu kalsoonaado yaan la xadgudbin intaasaan leeyahay kolley rag xadgudbaaya ninkaan lama dhalan cali hudeyo oo taliyaha booliska gurceelu la dhashay nin xadgudbi yaqaanana maaha nin maaragtay wax ka yaqaano waayo dhagarahaas oo kale oo boolisa anugu ninkaas waa naga wada dhintay guud ahaan oo naga wada baxay ragga wax dilaya ama maaragtay ragga bareerka cad u dilaya walaalahooda oo dadkooda garabkooda dhiigooda daadinaya anugu waxaan qabaa in tiirka lagu soo xiro aanan qabiil maahan tan waa mid ciidan waaye qawaariijti nin u shaqaynaya weeye nin taleefonkiisa wax ku soo dhaceen weeye adeeru macaanu sifo kasta ha loo yeelo nin ballanqaad wax ku dilaya weeye ha la toogto madaxa laga jaro aad iyo aadaan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu